waxaan rabaa inaan qodob yar ku daro oo soo qaato oo aan ka hadlo dagaalada ka socda laascaano oo aan isleeyahay ma aha dagaal loo baahna dagaal loo baahan yahay ma aha in maanta intaasoo dhiigga ay daadatana odayaashii reer Hargeysa ee shalay calanka keenay haddii maanta lagu yidhaahdo xaalad noocaasa burbur noocaasi ka jira xabaasha mayna qabteena way ka soo bixi lahay waa midaas sidaa daraaddeedna waxaan rabaa inaan idhaahdo war wax walba oo xal lagu dhammayn karo in xabad lagu raadiya xal ma noqonayso dadka reer waqooyigii shalay iyaga calanka keenay 1960kii way ku ammaanaayeen way ku sharfanaayeen waxbay sheegteen oo waxay yidhaahdeen dowladdii jirtay baa dhibaato noo geysatay oo waxbaan qabnaa soo ayaan darro kale ma aha waxaad adigu shalay diidanayd eed sheeganaysay inaad adigu maanta intaad samayso waxaad wadahadal ku xallin kartoo lagu dhammayn karayo in maanta madfac iyo xabad la isugu hayo waxaan rabaa arrinta laascaano inaan ku baaqo in xabad joojin aan shuruud lahayn la sameeyo ciidamada joogoo dhanna la kala qaado dadkuna khiyaarkooday qaadan doonaan afti baa la weydiin doonaa way codayn doonaan dowladda soomaaliyeedna mas-uuliyad baa ka saaran mujtamaca soomaaliyeed waxa ku dhacaya guriga la burburinayo hooyada barakacaysa iyo dhibaatada xalkuna kuma jiro xabad iyo madfac iyo laysku soo duulo hadday taasii socotana cid waliba wax kala dhexdeeda ka sii dhacayo ma istaagayso nabsigu waa wax aad u dhib badan waxaan rabaa inaan saaxiibkeen muuse bixi idhaahdo muuse waxaad adigu shalay diiday maanta ha isku dayin inaad ku dhacdo dadka ha loo raadiyo wax walba oo dhacyo wadahadal in loo geysto in laga wada hadlo in xal labadeed loo gaaro taasaa xalka ku jira taasay soomaalinimadu jirtaa taasaan ka wada shaqaynayna haddii shalay laydin dulmiyey waan idiin soo hoyanaynaa waxaan idin leenahay raalli ka ahaada idinma qabato waxaad maanta geysanaysaanna waxaan idin leenahay gacantaan idinka haynaa ee joojiya waa khalada